bismillaahi raxmaani raxiim. Kusoo dhawaada Istanbul Kitchen. Maanta waxaan sameynayaa insha Allah bajiya oo rabadaanka ugu talagalay ee aad u fudud insha Allah. Digirta noocaas isticmaalayaa ujeediin cabarka halku aday kugu xiran tahay marka inta aad rabto inaad sameysid. Ani laakiin koobkaan sameynayaa waa hal koob. Waxaan rabaa biyo marka intaan rabaa marka si fiican u dhaqayaa si fiican u dhaqaa markaan soo dhaqay soo dhigaysaa marka digirtan aad ay u fudud tahay oo midmadowga iyo wixii kuma jiraan. Hadda biyaha marka la dhigayaa waa la baraysiinayaa marka insha Allah. daboolkan saaraya markaan digirtii aan biyaha la dhigay waa la baraysiiyay biyaha si fiican hadan u soo dhaqay say noqoto mar jijibtaa la rabaa iyo waxyaalahan ku daraayo inta basal toon iyo kabsar caleen iyo cusbaan ku dar doono marka shiileena cusub isbaaska noocaas isticmaalayaa axyar leh wax badan ma rabo waa ka badsan kartaa hadaa rabtid. marka waxaan isticmaalayaa blenderkan aan ku shiidayaa ama kan kale oo cabitaanka lagu shiidanayo ku shiidi kartaa dhib ma laha kan isticmaalayaa saas soo shiiday. marka waxaan ku darayaa hal qaado oo baking powder intaan ku walaaqaynaa qaybtii ugu horeeyay aan ku riday la u gedinaysaa dabkana qiyaas ooga dhiganaysaa suu gudaa ooga karo. marka soo karo ka saarayna marka adig tuusha hoos dhigaysaa saliida oo dhuuqo marka hadda leesaa u soo qaada ama gacantaada isticmaali kartaa aad jeceshahay ay kugu xiran. markaa gedinaysaa dhinac kale rodrode
Okay, diyaar. maasha allah tabaarak allah. Bajiyaheena sida quruxda badan u soo baxay. wax aad iyo aad u fudud insha allah. basbaas kasta aa lagu cunayaa insha allah. asagoo aan misir ka sameeyay janaalkayga wuu ku jiraa. okay hadaa ka hesheen subscribe-ka like share kana waa dhiniciina.